bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka dunida qodobada wararka xiisaha leh ee aan xiliga kan idin hayna waxa kamid ah ahlus sunna wal jamaa oo guddi doorasho ka barbar dhistay guddigii dhawaan ay dhistay dawladda federaalka ee Soomaaliya xiisad siyaasadeed oo ka soo cusboonaatay magaalada Dhuusamareeb iyo wasiirka arrimaha gudaha oo wali halkaasi ku sugan waan idin haynaa faahfaahin ka soo baxaya qarax mas'uul lagu dhaawacay oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho waa kuma mas'uulkaasi waan idin soo gudbi doonaa dawladda Soomaaliya oo qaaday tallaabo kan oo ka dhana wasiirkii amniga Jubbaland oo ku jira xabsi ku yaal magaalada Muqdisho Ahmed Madoobe oo dib u soo celiyay ku xigeenadiisii xilli isaguba doorashadiisa ay beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya diideen Mareykanka oo ku faanay in uu madaxda Soomaalida ku cadaadiyay in ay ka laabtaan dacwadda ay geeyeen ICJ warka ka soo baxay Mareykanka waan idin haynaa qodobadaasi ayaa warka ku daawan doontaan bidnillaahi kariim saaxiibada qiimaha qadarinta inaga mudan channelka subscribe idin hado si aad u heshaan muuqaaladeena xiga haatan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka iyo khilaafaadka dawlad goboleedka Galmudug kadib warqad ka soo baxday xafiiskiisa guddiga oo ka kooban ilaa 12 xubnood ayaa ka shaqeyn doona wajiga labaad ee dhismaha Galmudug iyo doorashada maamulkaasi arintan ayaa ugu sii daraysa khilaafka u dhaxeeya dawladda iyo ahlus sunna wal jamaa xilli dawladdu ay hore ugu dhawaaqday guddiga farsamada maamul sameynta Galmudug oo ka kooban 13 xubnood kuwaasi oo wali ku sugan magaalada Muqdisho balse ahlus sunna wal jamaa ay kala hor timid sidoo kale waxa ay arintani ku soo aadaysaa iyadoo xalay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaanada ahlus sunna wal jamaa ay kulan ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb kaasi oo wax natiijaan ka soo bixin iyadoo ahlus sunna wal jamaa ay maanta guddigaasi ku dhawaaqday xubnaha guddiga ahlus sunna wal jamaa maanta ku dhawaaqday ee 12 ka kooban waxa ay kala yihiin Abdullaahi Faarax Bille Ahmed Diblaawe Casir Mahad Xasan Nuur Yuusuf Mahad Xasan Nuur Saalax Xaashi Faarax Ali Baashi Faarax Sharmarke Maxamed Warsame Yaasiin Sheekh Maxamed Muxudiin Sheekh Abdullaahi Cismaan iyo Cabdishakuur Ciise Xaashi faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Caalasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho qaraxa oo miina aha ayaa waxa lagu soo waramayaa in la eegtay gaari nooca raaxada ah oo uu la socday mas'uul ka tirsan maamulka deegaanka la foole iyo ciidamo kale al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas ayaa waxay sheegeen in ay la eegteen madaxa maaliyadda la foole Iimaan Maxamuud Cabdow iyo askari ilaaladiisa ahayd warka ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in dhaawac culus uu soo gaaray mas'uulkii gaarigaasi saarnaa iyo qaar kale oo kamid ah ilaaladiisa dhinaca kale ma jirto ilaa iyo haatan wax war oo ka soo baxay mas'uuliyiinta maamulka deegaanka la foole sidoo kale ma jirto cid ka madax banaan al-shabaab oo warkaasi xaqiijisay ilaa iyo haatan deegaanada dhacaduleedka magaalada Muqdisho ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa inta badan waxa ka dhaca qaraxyo iyo weeraro kale oo mas'uuliyadiisa ay sheegtaan al-shabaab Cabdirashiid Xasan Nuur oo loo yaqaan Janan isla markaana ahaa wasiirkii amniga Jubbaland ayaa loo diiday in uu la kulmo qaar ka tirsan odayaasha iyo nabaddoonada beeshiisa oo Muqdisho u imaaday inay arintiisa wax ka qabtaan odayaal ka tirsan beesha uu ka dhashay wasiirka oo muddo badan Muqdisho u joogay sidii ay xal ugu heli lahaayeen arinta wasiirka ayaa sheegay in xariga wasiir Janan uu yahay mid afduub ah isla markaana ay qaar ka tirsan xeerlaaliyaasha u sheegeen inuu si xaq dara ah u xiran yahay iyaguna ay mar hore diideen dacwadiisa odayaasha oo xaddi la soo dhaafay dib ugu laabtay degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa mar ay faahfaahinayeen arintaasi waxa ay nasiib daro ku tilmaameen in si sharci dara ah wasiirkii amniga Jubbaland uu xiran yahay qaar ka tirsan odayaasha oo saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay xitaa in loo diiday la kulanka wasiirka amniga Jubbaland ee xabsi ugu jira magaalada Muqdisho sidoo kalena waxay sheegeen in loo diiday qareenadii u doodi lahaa in la tusiyo wasiirkii amniga Jubbaland
ayaa dhowaan la soo taagay maxkamadda gobolka Banaadir waxaana loo jeediyay in loo haysto eedeymo ku aadan xadgudub iyo xasuuq dadweyne. waxa uu xiran yahay wasiirkii amniga Jubbaland muddo ka badan 2 bilood waxaana kowdii bishii September laga qabtay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho xilligaas oo uu ku wajahnaa dalka Ethiopia balse si lama filaan ah uu u galay gacanta dowladda Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa maanta magacaabay madaxweyne ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad. wareegta ka soo baxday xafiiskiisa ayaa lagu magacaabay Maxamuud Sayd Aadan inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland. waxa uu sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa labaad u magacaabay Cabdulqaadir Xaaji Maxamed oo asna horay u hayay jagadaasi. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa u rajeeyay xubnahan uu mar kale dib u magacaabay in waajibaadka loo igmaday ay ka soo bixi doonaan. magacaabistan uu xiligan sameeyay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa imaanaysa iyadoo doorashadii uu ku soo baxay Axmed Madoobe dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay ka soo horjeesteen. waxaana dhawaan Axmed Madoobe lagu caleemo saaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. ma jirto cid ka tirsan beesha caalamka oo wax aqoonsi ah ka haysta haba yaraatee marka laga reebo dowladda Kenya oo lagu eedeeyo in dana gaar ay ka leedahay arrimaha maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale la filayaa in dhawaan uu ku dhawaaqo liiska golihiisa wasiirada cusub ee Jubbaland balse lama oga in kuwii hore uu soo celin doono ama kuwa kale uu la imaan doono intuba. safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Kenya ayaa sheegay inuu ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya in dacwadda badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. xilli uu wareysi siinayay wargeyska ugu afka dheer ee dalka Kenya The Daily Nation ayaa wareysiga lagu weydiiyay halka dowladda Mareykanka ay ka taagan tahay arinta badda ee u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. waxa uu yiri arintan waa in si dhaqsi ah wax looga qabtaa. waxaan ka shaqeynay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta sidii miiska wada hadalka u imaan lahaayeen. aniguna waxaan tagay magaalada Muqdisho si aan madaxweyne Farmaajo ugala hadlo arintaasi. waxaan ku iri isaga baxa kiiska maxkamadda. sidaasi waxa yiri safiirka Mareykanka ee fadhiya Kenya. isagoo si hadlayay ayuu wuxuu sheegay in caqabadda ugu weyn ee hortaala madaxda Kenya iyo Soomaalida ay tahay sidii looga adkaan lahaa ururka Al-Shabaab oo labada dalba ka dagaalama loona baahan yahay inaanay wax kale ku mashquulin. sidaasi waxa yiri safiirka Mareykanka ee Kenya fadhiya. safiirka oo aan sheegin xilliga uu tagay Muqdisho ayaa sheegay in madaxweynaha Kenya uu wado dadaalo lagu xalinayo arintani. dowladda Soomaaliya ma aysan shaacinin kulanka uu safiirkan sheegayo in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magaalada Muqdisho kula qaatay. safiirka Mareykanka ee Kenya ayaa in badan isku dayay in Soomaaliya uu ka hor istaago dacwadeeda hortaala ICJ. waxaana warkan uu haatan sheegay uu kaliya ku yahay isaga maadaama dowladda federaalka Soomaaliya aan laga helin war ku saabsan kulanka uu sheegayo safiirkaasi. warkii oo aad kala socoteen channelka wararka dunida saaxiibada qiimaha naga mudan xiliga kan waa naga inta daawashada wacan ee warka waad ku mahadsantihiin. nabadgelyo.